كاميرا صار كاميرا صار بسم الله الرحمن الرحيم. هذا صحافة خلينا نقول في الدولة الصومالية يا شقيقة بدون في المدى إلى سنة وحشرة بنادم الصوماليين لما عاشوا تصورون هذا رنتي ما عندنا محاضرات كان بدي حركة عاي بسوي محمد ونوغا إمادي خليها بوليس الصوماليين ورنتي نوغا قرابي دفع دعاي بوليس دفع جيستي أنا بوليس مسؤول كأب dadki dib geystana waa la xisaabtamaynaa wixii shaqadii sidii loo sameeyay wuxuuna fariin oo keenay madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Cabdi oo runtii saakayda baaqa u jeedinay si degdeg ah ciidanka booliska soo diray amarna ku bixiyay ciidanka meesha laga saaro wixii jibintii la wadayna la joojiyay حتى نجد جبلنا إن شاء الله وحنا مدحينها يدولد الصومالي كعصينا مدام أنا نسكول إسكت برضه أنا نهاي إن شاء الله قال لي هذا وحنا قلقته وهو بقول أرضي مالي ساحنيسي أو جيف هاد أي أبربورتي أرضي يستيرون البناك يلا وحنا مركل معلوم علينا يا عيد البوليس الصومالية هي مدحينها البوليس الصومالية وذن محل عبد الله فرماجو ورنتي كيسو جوابي عدسيني ساكن مركي الحرينا حبسي نمسو زاهي ما هتقارن علينا وانا فيليني مدحينها فرماجو كمان أنا نقول مسواس كمان أنا نقول اسكندريه كمان أنا نقول والله يا ابن مركي waxa nagu dhaceen laakiin frintan markay ku noqotay soo jawaabi waxa cadaatay inuu yaa cadaaladnimadiisa iyo inuu musuqmaasuq u sameeyay ayaa noo cadaatay ummadda Soomaaliyeed hortooda waxa ugu mahad celinaya dawladda Soomaaliya ugu mahad celinaya talaabada ay qowqaaday madaxweyne Farmaajo taasoo ku daysho mudan waan u mahad celinayna برينا دل إن شاء الله دل هذا وحن كنت هاجرين دلنا بسوي حمر أنا سمعت دونا إن شاء الله دل أرنتاس أو مدحنا وسمي أنا كنت هاجرين سمعت دونا إن شاء الله قف قصر دوينه قف قصر تلاقي قصر دوي قدومي قول ها لما يسال الجماعه عادي حال ماشان كدعادي كسو جوابي مدحوينها قرنكا مدحوينه فرماجو وزارها ودنكا روبله ayna fariintii ay ummadda Soomaaliyeed gaalisay baahda waxbarashada iyo dadka kale oo waxbarashada xiriirka la leh ay ka jawaabeen dacwadii xal meeshan ka dhacday ay ka jawaabeen ay ka hadleen codsiga u direen madaxweynaha qaranka iyo wasaaraha iyo madaxda kale ee qaranka ay ka jawaabeen ayaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha iyo wasaaraha iyo dhammaan dawladda Soomaaliya sidoo kale waxaa runtii shaqadan wax fiican ka qabtay oo ayagan dhinacooda ka dadaalay gudoomiyaha qalada Fenis oo iskuulkan ka mid ah iskuulka Fenis midowga dugsiyada gobolka Banaadir madaxdooda dhammaan dadkii Soomaaliyeed dalqadeen in dhulkii waxbarashada loo rogo dhul ganacsi runtii waa wax fiican waa qiiro fiican annana sidoo kale maadaama waxbarashadii mas'uuliyadda ahayno sidoo kale aan codsiga u dirsanay kulligeena codsigii aan dirnay ummadda Soomaaliyeed waxa waxbarashada dhameystiran ka soo jawaabeen madaxweynaha iyo wasaaraha waxaan markaa u mahad celinaynaa madaxda si guud waxaa sidoo kale maanta inala jooga
taliyaha booliska Soomaaliyeed Taliya Xijaar oo runtii u yimid meeshaan arrintii uu ka soo qaaday madaxweynaha qaranka iyo wasaaraha iyo xukuumadda Soomaaliya si arrintan looga jawaabo wixii meesha ka dhacay loo joojiyo asagaan u deeynaa faahfaahinta do'alayno haddaan nahay madaxda waxbarashada ana wakiilka ah wasaaradda waxbarashada oo ahaa meeshaan u jooga iyo gobolkii iyo gudoomiyihii gobolka dhammaan bahda waxbarashada dowladda Soomaaliya iyo gobolka Banaadir waxaan leenahay mudan madaxweyne mudan wasaare iyo dhammaantiin oo mahadsantihiin iyo waqtiga uu soo bixiyay taliyaha booliska waxaan leenahay taliya waa mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh تلي حجار تلي حجيندا دوميها وحبرشدا قياسي وحبرشدا قبل كبنادم ميدوغا وحبرشدا قبل كبنادم دوميها دغمدا قدن iyo dhammaan waalidiinta iyo gudoomiyaha dalada FBN oo lagu soo booqday waxaan rabaa marka afbalaaran saaka waxaan ku gudbinay waaqanaga iyo codsiganaga iyo dhibaatadana soo gaartay waxa weeye wadaad wuxuu jecel yahay ducadaada alla waa aqbalay wuxuu ka jecel yahay lama arko marka waxaan aad farxad u tahay dabaaldegii iyo in laga soo jawaabay baaqanaga iyo codsiganagii gaaray madaxweynaha waliba nagu sharfay in loo soo diro taliyaasha Soomaaliya taliyaha ugu mudan oo ah taliyaha ciidanka booliiska waa ognahay booliisku wuxuu la nool yahay bulshada wuxuu qabtaa bulshada asoo arrinta ka jawaabaya xilliga lagu jiro aan ognahay waxaan ka mahadcelinaynaa ilaa saaka ilaa markii ka dhacay jiray khadka ilaa hadda maanta uu la joogo waxa gadaashayda fadhiyana oo taagan waa ilmihii Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay ku dhacday oo saaka la gabagabeeyay sariirahoodii la xooray caawa aan haysan meel marka farxad bay noo tahay waana ka mahadcelinaynaa in caawa niyadeenadu ay degan tahay waxaa mahadda iskale ilaah waxaa mahadda iskale taliyaha ciidanka booliiska waxaa mahadda iskale madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ra'iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed Maxamed Mudane Roble baaqanaga laga soo jawaabo waxaan leenahay waxaan ogaanaa maanta bahda waxbarashadu ay leedahay ehel difaaca waxaan ogaanay maanta in ay ardada Soomaaliyeed ay leeyihiin cid u damqanaysa u diyaara inay ilaaliso xuquuqda aad kalsoonida aan ingiriisiga waxaan leenahay jazaakumullah khayr aad iyo aad ugu mahadsantihiin madaxda qaranka waana idin taageersanahay waxaan doonayaa kala maaha dhulkan waxaan taagnay weligeed dawlad iskale dhulkan haddii cid qaadaysa dawladdu ha qaadato laakiin marna raalli kuma nihin in shacaba intuu qaato uu ka dhiso sanada dheer iyo real estate oo ay waayaan ardada Soomaaliyeed meel wax ku bartaan konton sano ka hor wax lagu baranayay waxaan rabnaa kun sano soo socda in dhulkan uu sii jiro ilaa qiyaamaha laga duubayo uuna baaqi ku ahaado goob wax lagu barto arrintaana maanta waxaa suurageliyay ilaahay ka sokow codsiga lagu soo jawaabo madaxweyne Farmaajo waana u mahadcelinaynaa waxaan leenahay madaxweyne Farmaajo jiro joog waxaad noo soo dirtay oo nagu sharaftay taliyaha ciidanka booliiska waxaan leeyahay Soomaalidu marbar bay maamaadaay nuur iyo naaleeyo maanta mataqaana nagama maqna haddii uu nala joogo ra'iisul wasaare xajar aad buu ma taliya booliiska soo dhaweynaa taliyaha booliiska Soomaaliyeed
ميدو قردنا ما شاء الله ما شاء الله دلوقتي ما جوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waxaan maanta ku faraxsanahay dhacdadii dugsiga hoyga xamar oo runtii xal bilow ah laga gaaray inta kale insha Allah taala la dhameystiri doono haduu Ilaahay idmo midowga dugsiyada gobolka Banaadir oo saakay halkan ku soo jarmaaday kadib markii uu maqlay xogaa dhibkii gaaray ardaydii hoyga xamar xalay ku hooyatay si nabad ah ugu hooyatay insha Allah taala xalkaasna xal loo helo ugu sareysa qaranka ay ka soo jawaabeen iyo taliyaha ciidanka booliska oo runtii ergo hogaaminayay ay ku soo baxeen sababna oo insha Allah taala xalkaas la qabtay aad ayaan ugu faraxsanahay marka khalad yar oo dhacana in sida qaranka ay uga soo jawaabaan kastana wada jeedina haduu Ilaahay idmo dugsiga xamar sare ayaa la dhihi jiray runtii taariikh dheer ku lahaa dalka haddana dugsiga hoyga xamar wuxuu hayaa adeeg waxbarasho waxaan u mahadcelinaynaa xalka iyo ergada runtii soo gaartay dugsiga oo hogaaminaya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed abaal iyo amaan ayay mudan yihiin waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inta dhimanna in la dhameystiro bahda dugsiga hoyga xamarna qalbigooda iyo guud ahaan bahda waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada iyo agaasiga waxbarashada gobolka Banaadir iyo dalada dugsiga oo ka tirsan yahayba iyo midowga dugsiyada gobolka Banaadir intaba runtii aad ayuu qalbigooda u degan yahay waana ku faraxsanahay xalka waafiga la gaaray inta dhimanna waxaan rajayn doonaa in la dhameystiro diri doono haduu Ilaahay idmo aad u mahadsantiin taliyaha booliska Riyaad waxaan leenahay aad uga mahadsantihiin adiga iyo taliyaasha ciidamada ee soo dirtay anaga inaan garab leenahay oo ay noo joogaan
mataqaanaa dad nabadda maqanayo aad ugu mahadsantihiin taas ayada waxaan leeyahay hawshan ayada ah waxay saldhig u tahay iskuullada dowladda ee ku yaalla gobolka banaadir ama dalka in marka horeba ay ahaayeen wax dowladdu leedahay dadkii hore laga qaadayna dadkas loo bedelay oo bedel la siiyey bedelkoodii laakiin maanta ay dadkii awiyada u ahaayeen iyo weli leeyihiin war wixii annaga iska leheen oo weli ku soo noqnoonayaan hawshan maanta dhacday waxay tusaale u tahay inaan insha allah aan iskuul dambe oo dowladeed aan dad hore looga qaaday ay dib ugu soo noqon doonin marka waxaan leenahay arrintaas meel ummadeenni wax lagu barahayo dadkeenni wax ku baranayaan berrito ay ka soo baxayaan dadka wax maamula haddii maanta dib ugu noqoto min madaxweyne ilaa taliya dadka maanta gurmanaya waa dadkii iskuulladan ka baxay taliya xijaar waxaan isla ognahay inuu ka baxay 15 May meesha markaa aniga kumarshaal dhiganaya isla 15 May ay dhiganayay waa meel mataqaanaa guri walba iyo dhul walba ma tahay oo waxbarasho loogu talagalay wax jirahayo sanooyin badan ay jiraan oo naga sii dambeeyaan aan rabno inaanan wax moogta dan khaasa aan laga fiirinin ka dalad ahaan waxa weeye kulley waxaan ahayn dadkii u kacay waxbarashada dalka min macna raas Kamboni ilaa raas Casayr maanta waxbarashada haddii la weydiiyana aan maarta wax ka sheegi karo inta waxa weeyaan haddaan waagi horena lagu tabcin maanta dad lama heleen dadka meesha jooga waxa lagu helay waxa weeye tacabkii waagi hore la sameeyay ayaa inta dambe soo gaaray waxa taliyaha xijaar meesha uu joogan waxa weeye tacabkii waagi hore lagu tabcay weeye waxaan leenahay tacabkaasi inuu sii socdo gaaro meelihii loogu talagalay dadkana loo fiirsado inay berrito u yihiin ninka maanta wax baranaya ka madaxweynaha noqonayo ka ra'iisul wasaaraha noqonayo ka taliyaha noqonayo haddaan maanta wanaag la tusin yaasna wanaag darro buu ku waxaysmaya cadaaladdu ayaana deeqdo cadaaladaan u soconnaa cadaaladda ha lagu dadaalo wanaagga ha lagu dadaalo marka warka waan idinka badiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Bismillah. Warna waktu selama dari Abdul Somalia. Dengan tingkat penadir, dengan tingkat saya menjawab terletak. Jalan ke Bali, takut cuma takut aku hai. Wahan. Selama sahabat walidin tak ardayda. Oke, sama. Oke, perlu sama. Bismillah. Goreng wa salama saxaafadda waalidiinta ardayda sagala gargixiyay iyo maamulkooda waxaan cadeynaynaa oo walaay magaca maamulka degmada Hodan inaan ka xunaa falkiisa ka meeshan ka dhacay sidoo kale waxaan raali gelin buuxinaynaa waalidiintii ardaydii saakay la gargixiyay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha dalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo arrinkaas ka jawaabay sidoo kale waxaan mahadcelinayaa taliyaha booliska Soomaaliyeed oo sida maalinimo u soo gurmaday anigoo ku hadlayo magaca maamulka degmada waan ka xunaa fidaag ka dhacay aad iyo aad ciddii ka dambeydana waxaan rajeynaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
maanta ay taariikhdu tahay 26 bisha February waxaanu joognaa dugsiga hoyga xamar oo aanu ugu nimi inaanu ka jawaab celino wixii xalay ka dhacay. marka hore waxaan salaamayaa marka baada tacliinta nala jooga oo ugu horeeyo agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir, dalada gobolka Banaadir ee waxbarashada, gudoomiyaha degmada, dugsigaas muxuu ahaa xamar, dhammaan meediyaha oo aad iyo aad iyadoo jimco ah iyaguna maanta halkaa nala jooga. waqtigoodii qaaligaana noo keenay ardada dhabarkayga taagan oo xalay toboladii hudeel ee kiciye ah, hooyooyinka waalidiinta degmada Hodan iyo dadweynaha degan. waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan uga soo qayb gasheen shirkan jaraa'id oo maanta halkaanu ku qabanayno, kaasoo ku yimi baahda waxbarashada ee mas'uuliyadda dugsigan haysay iyo gobolka Banaadir af iyo qoraal bay saaka ku gaarsiiyeen madaxda sare ee dawladda ugu horeeya madaxweynaha, prime ministerka, wasiirka tacliinta, wasiirka xigeenka warfaafinta oo ka jawaabayay dhammaantood ay soo gaadhay dacwadiinnii xalay wixii meeshan ka dhacay oo hay-ado ka tirsan muxuu ahaa dawladda ay ku kaceen. booliiska life buu idinku yimi, noloshaad ku aragteen saraakiishii iyo askartii idin timi, laakiin hay-ado kaleoo dawladeed baa iyaguna ku jira oo muxuu ahaa ka qayb qaatay falkan inuu dhaco. annagoo taa ka jawaabaynaa sidaa hadda ku yimi. marka u horreysa warqad iyo aad u dirteen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuu helay jawaabteedii anaan halka ku yimi. prime ministerku teleefon buu 2 jeer igu soo wacay isagoo ka walwalsan bahda waxbarashada ee dawladdu isagoo hogaaminayo siday uga go'an tahay inuu u taakuleeyo, u gacan qabto, u barbaariyo, wax uga soo saaro. iyo warqadda dacwada u timaas qaban waayey ilaa 2 jeer wasiirku ay soo wacay, ra'iisul wasaaruhu way soo wacay in anigoo ka mas'uula ciidanka booliiska Soomaaliyeed anigu nafteedu aan meesha tago, xaaladda indheeyo, qiimeeyo, kadibna shirkan jaraa'id ay ka soo qayb galaan dadkii saaka dacwadu soo qartay ay arkaan sida dawladdu uga soo jawaabtay aanu halka ku wada qabanno. taasi waa qodobka labaad aan rabaa inaan idiin sheego waxa weeye dawladdu waxaa ka go'an horumarinta iyo daryeelka waxbarashada. marna kuma talagelin inay meel waxbarasho leedahay haddii laga qaadayana sharci baa lagu qaadaa. keligiis maaha, iskoolaad badan oo tiro badan oo hadda waxaa jira dawladdu dhulal ay lahayd oo dawlad gacmaha dad kale ku hayaan, dadkiina ogol yihiin. dawladdu marka hadday rabto procedure iyo nidaam bay u soo maraysaa. sidii xalay oo kale inay dhacdo ma ogolin. iskoolkan wuxuu ku fadhiyay sharci, warqado qoraala oo wasaaradda tacliinta iyo wasiiradii kala dambeeyey oo intaasoo sannadood wax ka soo baxayeen oo la ogaa weyn. hadday noqoto in dawladdu la noqoto waxaa jira nidaam la rabay in la soo maro. aad iyo aad baan waxaan idinkaga muxuu ahaa raaligelinayaa dhacdadii xalay dhacday inaan wasaaradda tacliintu siyaasaddeeda aan ahayn, siyaasadda dawladda ahayn, tan prime ministerka ahayn, kan booliiskana aan ahayn. waxaan saraakiishii iyo hay-adihii ku shuqul lahaa, gaar ahaan kuwii aniga aan iqaabilsana booliiska ee hawsha fuliyena, tallaabo sharciga laga qaadayo oo aad maqli doontaan ilaa berri subax haddii ilaahay nafta nagu gaarsiiyo. booliiska kaliya maaha, waa cid kasta oo dawladda ka socotay oo falkan ku lug lahayd. waxaan caddaynayaa maanta oo jimco ah oo dalka moogtahay aanu ku jirnay muxuu ahaa safgaradkii xalay dalka dejiyey, magaalada noo dejiyey, oo nin walba uu ku saxday farxad in qof walba ay soo gaadho hoygiisa ay ku soo gaadho
waxaas dawladdu waa ka shaqaysay waa u dhabararagtay waa u soo jeedeen ilaa shalay oo dhan in maanta marka hay-adihii tacliinta ee baalasha u ahaa dawladda in falkaanoo kale xalay uu ka dhaco ama laga dhaco wax laga muxuu ahaa xilkeeda la qaato waay waxaan filayaa mas-uuliyiinta meesha ka hadashay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa hadduu yahay gudoomiyaha degmada hadduu yahay muxuu ahaa waxbarashada muxuu ahaa gobolka banaadir dalladda waxbarashada ee gobolka banaadir maamulaha dugsiga profesorka iyo agaasimayaasha oo dhan nala jooga kulligood waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa sida diiran ay u ajiibeen ama u qaateen ama noola garteen fariinkii aanu dawladda ka siinay ee aanu soo gaarsiinay sida ay u qaateen aad iyo aad annaguna uga mahad celinaynaa waxaana jecellahay tanoo kale inayan dib dambe u dhicin waxaad ogaataan inaad dawlad leedihiin dawlad tacliinta jecel leedihiin wixii dambe oo yimaada iyo wixii la midana waddadii la mari lahaa waa idiin furantay tanna waxay idiin adkaynaysaa dawladdu hadday iskoolkan u baahantay iyadaa soo doonan doonta inta ka horeysana waxaanu jeclaan lahay in mataqaanaa waxaa intaa ku darayaa waxaad soo tusteen dhibaatadii gaadhay sariiro iyo derbi la dumiyo iyo waxyaabo noocaasa dawladda kula noqonayaa wixii awooddeeda ah oo prime ministerka iyo wasaaradda tacliinta iyo sida wax looga qaban lahaana iyagaan la kaashan doonaa annagana ka booliis ahaan sideedaba booliisku waagii beriya waa naloo yeeraa dacwaa naloo haysta maxaa yeele shaqadeennaaba inaanu wax qaladno oo marnalka qaadka waa dhacdaa laakiin inta badan waxaanu isku daynaa inaanu la noolaano bulshada oo wax la qabanno oo 17 degme xamar iyo waaxyaheeda aanu garab taagnaano marka bararka qaarkood wax waa dhacayaan bini aadan baanu nahay sidaas in mataqaanaa fariintaas aan soo gudbiyey aada jiibteen dawladda ka wada iyo madaxda iyo muxuu ahaa tan booliiskaba intaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo aad iyo aadna idinkaga mahad celinaya kasoo qaybgalka dhammaantiin waxaa jira dad ku doodaya in dhulkan iyagu ay leeyihiin adigu haatan waxaa joogtaa dugsiga hoyga xamar dhulkii dhex joogtaa maxaa kuu muuqanaya wallaahi aniga waxaa taariikhda iskoolkan iyo dadka jooga iyo macallimiinta jooga anugu qaalli maahi cid hadda soo doonata xitaa anigu ma aqaani laakiin wax sharciga waafaqsan waay ninka anaa lehi dawlad iyo sharci iyo nidaam baa la rabaa inuu maro anigu hadda maahi moogtahay dacwad ma qaadayaan dacwad qaado uma imaan waxaan u imi dhibkii gaaray xalay iyo iskoolkan in dawladi leedahay dawladduna ku og tahay markii iyo dawladdu maagtana u imaanayso anugu shaksi ah horena uguma maqal haddana kuma arag umana aqoonsanin meesha taa anugu qof shaksiya inuu leeyahay maasina kale haatan waxaa halkan ila jooga qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga hoyga xamar waa ardayda seexanaysay qaybta xanaanada ee la burburiyey adigoo magacaaga ku bilaabaya sidee u aragtaa hadalka dowladda federaalka Soomaaliya
Yeah.